بسم الله الرحمن الرحيم داوديال meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka qurbajoog ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo toddobaad kasta aad ka daawataan TV-ga qaranka barnaamijka qurbajoog daawadayaal toddobaadkan waxa aan idinkaga soo diyaarinay dalka Liechtenstein oo kamid ah dalalka caalamka kuwooda ugu yar waana dalka lixaad ee dunida aynu ku noolnahay ugu yar Liechtenstein dal yar oo ay dadkiisu kooban yihiin sidaas ay tahay wadankan waxa ku nool Soomaali aad u fara badan oo aan doonaynin barnaamijka qurbajoog aynu noloshooda iyo waliba xaaladda guud ee wadanka Liechtenstein wax ka weydiino barnaamijka qurbajoog daawadayaal waxa idin soo diyaariyay halkaan ka soo jeedinaya anigoo ah Cabdiqani Cali Dalmar haddaba daawadayaal inta aan barnaamijka u guda galin bal aan wax yar idin dulmaro taariikhda wadankan Liechtenstein. Wadanka Liechtenstein waa dalka lixaad ee ugu yar dunida, sidoo kale waa dalka afaraad ee ugu yar qaaradan Yurub marka laga soo tago dalalka Vatican, San Marino iyo Monaco. Liechtenstein ayaa waxa uu xad la leeyahay wadamada Switzerland iyo Austria. Dalkan yar kama mid ahaan dalalka ku bahoobay midowga Yurub, balse waxa ay kula jirtaa heshiisyo badan sida dhanka ganacsiga iyo isu socodka. Waa wadanka kaliya caalamka guud ahaantiisa wada dhaco buuraha caanka ah ee Alpen. Liechtenstein ayaa tirada dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 37,000 oo ruux. Dhulkiisa oo dhamina waa 160 kiiloomitir oo laba jibaaran. Heerka shaqada 2% ma dhamo shaqo la'aantu, waxaana dalkan ka diiwaan gashan shirkado ka badan tirada dadka dalka u dhashay. Waa dal ay siyaasadiisu tahay dhexdhexaad, ma lahan military, waxayna ciidankeedu militariga kala dirtay sanadka markuu ahaa 1868. Ciidanka Bileyska waa 125 ruux oo 87 ka mid ah ay yihiin saraakiil suuqa u shaqo tagta, halka 38 ay yihiin rayd booliska la shaqeeya. Wadanka Liechtenstein waxa ay ka mid tahay dalalka adduunka ugu dambeeyada yar. Soo dhaweynta deganaanshaha iyo dhalashada Liechtenstein ayaa ah mid aad u adag marka loo eego dalal badan oo qaaradan Yurub ka tirsan, waxaana la sheegaa in baasaboorkeedu lagu helo wax ka badan 15 sano oo ay la socdaan shuruudo adag. dhanka Soomaalida waxaa la sheegaa inay halkan ku nool yihiin tiro aad u yar oo lagu qiyaasay 40 qof oo la sheegay inuu degan yahay boqorka wadankan madaxda ka ah. bal wax yar noo faahfaahin. runtii niyahow way fara badan tahay taariikhdu wadanku aad bay fara badan tahay. ninkan aad arkaysaan muddo hadda 300 oo sano laga joogo ayuu halkan yimid. anaga arkaysaan qabcadan naga dambaysa waa taariikh aan la soo koobi karin weeyaan. laakiin markaan kaaga hadlo wadanka inta ku nool Soomaalida degan qaabkii uu degan tahay tiro guud ahaan waa 40 Soomaalidu rag iyo dumar markaan isku darnay. wadanku waa mad iska dhaqaalihiisu iska ka u yahay. waa magaalo runtii aan la soo koobi karin quruxdeedu, bilicdeedu, dadkeedu sidoo uu isku kalsoon yahay. qaas ahaan Soomaalidu annaga waxaan ka nahay dad maanta isku duuban sida aad dareemaysaan oo dhalinyarada hareeyga taagan aad ka dareemaysaan, ama hablaha idin soo dhaweeyay, ama programkan la wada wata maanta halkan aan noogu timaadeen. wad arkaysaan waa magaalo taariikhdeeda inaan idin barno aan jecelnahay, caalamkana aan tusno heerka ay gaarsan tahay wadanka Liechtenstein. inta ay leegtahay caasimadeedu Vaduz qaas ahaan annaga aan ku noolnahay waa magaalo dadkeedu Soomaalidu ay ka shaqeystaan runtii. waa tahay shaqooyinka Soomaalida halkan qaabkee ay u shaqeeyaan, sidees u helaan shaqooyinka? niyahow taa way fududahay markaan kaaga jawaabo su'aasheedu way fududahay. dadku Soomaalida meeshaan joogto ninka shaqaysanaya
mise kan aanan doonaynin shaqadu ninka shaqaysanayo waddanku shaqo way taallaa waan la shaqaystaa rag baa waxaad arkaysaa ee ka shaqeeya baa ishtiyalle dhismaha ka shaqeeya guryaha dhiso xirfadooda ay tahay rag baa waxaa ka shaqeeyo wada forlifta ama stablerta wax loo yaqaano ku shaqeeya shirkadaha waddanka ugu waaweyn waddanka ku yaala rag baa waxaa ka shaqeeyo aad arkaysaa wada tagaasida rag baa waxaad arkaysaa ka shaqeeyo hordheelada rag baa waxaad arkaysaa ka shaqeeya runtii shaqooyin kala duwan waata xuseen dad badan oo caalamka ku nool gaar ahaan soomaalidu waddankan aqoon uma lahan waxaa la sheegaa inuu yahay waddanka lixaad ee ugu yar caalamka aan joogno bal dadkaan aqoonta u lahayn oo waddanka sidaas u yaraa intaas qof ee Soomaali ku nooshahay sidee Soomaalida ku yimaadeen niyo Soomaali waxay ku yimaadeen Soomaalida horta waxa weeyaan waa dad runtii farmasiyoonkiisa siiya warbixinta siiya Soomaalida waa dad ma runtii waxaan maleynayaa howlahaas way ku fiican tahay in ay siiyaan waxyaalaha farmasiyoonka ah ama warbixintu meeshii wanaagan ama lagu nagaadi kara runtii meeshan dad baa anaga naga soo horeeyay joogay ugu nimaanay warbixinta noo soo sheegay kadib ayaan ku nimaanay halkan waa tahay daawadayaal barnaamijka qurba joog ayaad weli la socotaan waxaan ku sugannahay magaalada Vaduz ee xarunta waddanka Liechtenstein gaar ahaan waxaan haatan joognaa dhismaha baarlamaanka waddanka Liechtenstein halka iga dambeeya ku yaala marka hore waxaan rabaa inaan Qadra Shire ka wareysto bal taariikhda xaruntan baarlamaanka iyo dhismahan iyo waxa uu ku saabsan yahay bal warbixin yar naga sii halkan gadaale dhismahan waxa uu yahay dhismaha naga dambeeya waa dhismihii baarlamaanka dhismahan kale waa xaruntii dawladda oo looga taliyay waddanka halka ku sugan maanta waa caasimadda Vaduz ee boqortooyada Liechtenstein waa tahay xarunta baarlamaanka xubnaha baarlamaanka uu ka kooban yahay tiradooda iyo qaabkay u shaqeeyaan adoo noo sheegan soo dhaw waxay ka kooban yihiin 25 ay ka kooban yihiin raga u badan qiyaastii 3 ilaa 5 dumarka ah maalweeda yani laga mudaharaada in raga loo bado yani dumarka loo bado ama 50-50 laga dhigo kala marka 25 kaas yani waa tahay Qadra hooshooda maxay tahay hoosh ay qabtaan waa inay yani maamulaa waddanka waa waddan boqortooyo ah waa waddan yani la aqoonsan yahay waa waddan 300 sano jirsaday marka waa laba qaybna waa baarlamaan qaybna boqortooyada marka labada way isla shaqeeyaan saas waddan lagu maamulaa waa tahay dhanka fulinta ma baarlamaanka qabto mase boqortooyada howlahaas qabato mase waxa ay leedahay dawlad xukuumad waddanka ka shaqeyso sida ra'iisul wasaare xukuumadda leedahay madaxweyne leedahay boqortooyadana kama marno iyadana way la go'aamisaa waa tahay Liechtenstein ma ku jirtaa wadamada midowga Yurub ku bahooga unionku way ku jirtaa laakiin Schengen kuma jirto waa sida Switzerland calaamadda unionka ma lahan qofka rabo inuu Liechtenstein degan ee soo galooti ah tusaale ahaan ee rabo inuu wadamada kale Yurub u dhoofo ama caalamka qaabkii ay u baxaan baasaboor leeyihiin ay ku dhoofayaan ay ku tagi karaan marka hadduu Schengen lahayn sidoo u tagi karaa wadamada kale Yurub والله waa ku tagnaa anaga ku tagnaa baasaboorkooda waa la aqoonsan yahay maadaama waddan European uu yahay sidii waa waddanka Switzerland oo kale waddan calan waddan la aqoonsan yahay sharcigiisana waa sharci international oo shaqeynaayo waa tahay Qadra intee sana ay adigu laftirkaaga joogtaa waddanka Liechtenstein goormay soo gashay waxa soo gal 2009 soo galay muddo 10 ay buuxsatay October labadeeda waa tahay intee ay kugu qaadatay inaad deganaasho waddankan ka hesho والله يا مي هو أتكد إن يعني ودنك يعني لا أقول إنه يعني ضد أجانب أي دجنادان كما كنت نمدلله بس سنة لا بد السنة ودنك وحولها مو مبهن يعني ضد مدو مقابل كان أنا ودن يرى أنا جبحان إلا يعني ضد مركز بيك وضد بحان وحيرة وصهر إنه مركز إيه فرق كبير شرعي على سيد دجناش ما ضد مركز دم بس وصل فرع شقدي شرعي قاش هذا كام كأول واحد بدل الجو جراد لكن وصل فرع ودنك waayahay ugu dambeyntii Soomaalida ku nool halkan qaabkee ay isaga warhayaan ama isugu xiran yihiin wallahi horta waddanka waa waddan yar Soomaalida degan waa in yar oo iswada taqaano halkan ka soo wada baxay yani مليون واحد جاليد يعني ملا كلن لكن سياسة هاي واسكور قمنا ضد إحنا حنا إسكو حرن ويعني إسوق داوديال ولي وحن كجرنا ديارنت برنامجka qurba joog waxaanan ku sugannahay dalka Liechtenstein oo aan doonayno inaynu u kuur galno nolosha dadka Soomaaliyeed ee waddankan ku nool
marka hore soo dhawow ku soo dhawow barnaamijka qurbajoogka telefishinka qaranka Soomaaliyeed magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Nuuridiin Xasan Jaamac oo ku nool wadankan Liechtenstein Nuuridiin intee sano wadanka joogtaa muddo laga joogaa 10 sanadood waan joognaa 2009 ilaa hadda waa tahay bal wadankan qaabkiisa migrationka iyo xuduudihiisa ciidamadiisa muxuu kaga duwan yahay wadamada kale ee Yurub walaalo wadankan horta waa wadan aad u kooban marka loo eego wadamada Yurub oo dhan balse waa wadan boqortooy ahaan isku maamula oo nahayn sida wadamada kale ee Sweden wadanku waxa weeyaan dhererkiisa 35 kilomitir balciisa waa 5 kilomitir xuduudihiisa iyo wadanku wuxuu leeyahay Switzerland iyo Austria wadanka leedahay waa tahay intee magaalo ka kooban yahay wadankan magaalooyinkiisa waxa loo eegaa xeer kamaynta ayaa loo eegaa 11 kamaynta ayuu ka kooban yahay waa tahay waxa nooga warantaa waxa la ii sheegay in halkan lacagta ay isticmaalaan ay tahay lacagta wadanka Swiss-ka oo kale bal ka waran intaas walaal waa run marka loo eego wadankan lacag gaar ma laha lacagta isticmaala waa lacagta Switzerland wuxuu kaga duwan yahay kaliyaata nambarka gaariga oo shildiga leedah iyo calankiisa oo gaara sharciyada Switzerland bixiso ayuu bixiyaa sida enta efta beeda sida ila baasaboorkiisa marka waa ka gaar laakiin inta kale waa isaga mid sida Switzerland beeda Switzerland iyo efta Switzerland buu bixiyaa waayahay qofka rabo inuu wadankan tusaale ahaan baasaboorka wadankan helo intee sano ku qaadanaysaa helitaankiisa walaalo sidii hadda la noo sheegay oo xeerasha iyo gasadsiga wadanka uu dhigay in waxay ku qurux badan tahay ciyaalka aan dhalay ay ku qaadan karaan 16 sanadood balse qofku markuu yimaado loo eegayo xeerasha la marayo darteed ilaa 15 sanadood inuu sugi karo 20 sano marka maxaa looga baahan yahay qofka hadduu rabo inuu muwaadin noqdo wadankan shuruudaha maxaa kamid ah shuruudaha waxaa kamid ah inaad wax dambiye gelin inaad maxaan ku raday qof shaqeeyo tahay inaad luuqadda 60% aad ku hadli karto waa tahay ma soo qaataa dad qaxooti ah oo magangeliyo doon ah ma siyaa deganaansho wadankan mise kuma jiro wadamada Yurub ee dadka deegaanka siiyo muddo hadda laga joogo 8 sanadood ayaa wiil aan maqalay Eritrean wadankan Eritrea ka soo jeeda ay ka soo qaatay wadanka Malta waa taa ugu dambeyntii ciidamo gooni ma leeyihiin mise waxa ay ciidamada la wadaagaan wadamada jaarka la ah wadankani guud ahaan horta military ma laha booliiskiisana waxa weeyaan 90 qof waa wadan oo sidaa u kooban wadanka xuduudihiisa waxa uu ilaaliya wadanka Switzerland oo marka horeba magangeliyada siiyay maadaama magangeliyadu siiyeen ilaa hadda xuduudaha waxa ilaaliya ciidamada Switzerland oo la yiraahdo Grenze Fooqa Austria Switzerland xuduud ma laha way isku furan tahay balse marka loo eego wadanka deriska nahay oo Austria waxa ilaaliya ciidamada oo xuduudaha ee Switzerland magacaygu waxaa la Marin Maxamed Xasan Maryam intee sano ayaa wadankan Liechtenstein degantaa waxaan deganaa 12 sano adoo codkaa kor u qaaday bal ka waran nolosha qoysaska Soomaaliyeed ee halkan degan sidoo kale ma noo sheegi kartaa tirada qoysaska Soomaaliyeed ee wadankan Liechtenstein ku nool waxaa ku nool haddii qoys ahaan laga xisaabo 8 family aan ku deganaana أنا كمد أهاي عرور iyo family joogo kaliya bas waa tahay ka waran nolosha in qurba lagu noolaado qoysas Soomaaliyeed qaar ka tirsan dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Liechtenstein oo la hadlay barnaamijka qurba joog ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka warameen xaaladooda nololeed ee wadankan iyo sida uu yahay dhaqdhaqaaqa ay ku dhaxleeyihiin bulshada ay la nool yihiin ilmihii way badan yihiin looma dhigo luqada kaliya Dutch-ka kaliya ku hadlaan iyo marmar way iska jirtaa looga dhigay Skype-ka quraanka laakiin ma haysano meel aan tagno masjid ah ama ay dhigan karaan
sida weekendigo kale la tago ama meel ay wax ku bartaan ma haystaan. waayahay waxbarashada wadankan Liechtenstein ma mid lacag la'aan ba mise waa mid lacag may marka kindergarten ka bilaabo ilaa waa free wax lacag kuma dhigtaan. laakiin marka dambe markay ilaa jaamacad heer ay gaaraan adaas ka bixinaya. okay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xiriirka idinka dhaxeeya Soomaalida halkan ku nool gaar ahaan qoysaska aad ii sheegtay intuu gaarsiisay xiriir noocay idinka dhaxeeya. walaa waa wada xiriirnaa qof kasta in kasta oo xaafad yar iska taadane qof kasta waa iska warqabaan wax hada maanta meel iskugu imaado ma lihnin contact weyn ah laakiin waa la iska warqabaa. waata wadan aad u yar oo dadkiisaba ay 40 ku gaareenin Soomaali ku dhaxnool dhaqanka Soomaaliyeed iyo qaabka diinta iyo sidee uga nooshay. walaa waa iskaga noolnaa lemoogi ma haysano meel aan dhaqan ama diinin ku samaysano ama sida masjidka oo kale ama meelaha quraanka oo kale ama in aan sameyno barnaamijyada Soomaalida oo kale ma haysano. wax dhibaatooyin ah oo halkan marka hore waxaan mahad celinaya Cabdiqani iyo SNTV sabab wanaagsan oo soo booqateen. haddii aan isku dayo inaan sharaxo sportiga Liechtenstein ka jira runtii walaa waxa ka jirta koox Liechtenstein in badan ka jirtay oo ciyaarta koob badan fintarka ciyaarta koobka samarka ciyaarta maadaama nahay wadan yar oo aad u yar aanay macquul ahayn inaan sportigi ku dhex ciyaarno isaga. sportiga waxaan la wadaagnaa sida wadamada jaarka ah sida waddanka Switzerland iyo waddanka Austria sidii wadankii kooxaha ay uga dhisayeen halkan uga dhisna way dadku wada shaqeeyaan sabtidoo kale ayaa isku nimaadnaa ayaan xoogaa yara almiteena mar hadduu jiro laga qayb geliyo oo sida fintarka ah ama samarka ah oo kale markaas waa xoogaa uu diyaar garow waan sameynaa. badanaa waxaan ka qayb galnaa waa laba koob baa jira oo laga ciyaaro waddanka Switzerland. badanaa waxaan ku xidhanahay haddaan kooxda Liechtenstein ka mid nahay Switzerland markaan ku xidhanahay. marka waxaan sameynaa koobka samarka oo kale gobolada Swiss-ka ka soo qayb galayaan anuna ka gobol ahaan ayaan u matalnaa waddanka Liechtenstein maadaama aan yarnahay oo aan macquul ahayn inaan keligay koob qabsano. marka sportka Liechtenstein waa sidaas isku maadsiga iyo calaamado badan iyo waxaas train badan ma jiro waayo macquul ma aha dadka wada shaqeynaya ilaa hadda wallahi heer wanaagsan oo sportka waxaan noo maray anaga alxamdulillah. walaal waan leenahay Liechtenstein waan leenahay garoon dibadda waan leenahay markay samarku jiro kale garoon Fidus ku yaala Dresden ku yaala oo aan ku almeetana ayaa jira. fintarka kale walaal waxa jira hoolalka badan lagu ciyaara because dibadii waa qawwa iyadana dhowr howl baan leenahay oo aan habeenka Jimcaha kale habeenka Sabtida soo galay kale dhammaan aan ku ciyaarno ayaan leenahay. yaa idinka taageero oo helitaanka gormaas idinka taageero. waa su'aal fiican walaal warta ma jirto wax caawinaado xagga wadanka iyo waxaasa nooga imaada ma jirto. annagu baa isku tashana waayo maadaama dadku wada shaqeeyaan wixii koox marka la galiyo kale oo kharash ku baxaya annaga iska dhiibna qaramaanto kale annaga iibsana aduu markaa waa iska wax u qabsan ay u badannahay cid wax kale naga cabisa ma jirto. marka annagu baan insha Allah isku tashana caawinada waa sidaa markaa walaal. Soomaalida halka ku nool waa dad deganaa wadanka Liechtenstein muddooyinka u dambeeyay 10 sano u dambeeyay waxaa jirto laba Soomaaliya ka horeysay odayga 5 sano ugu horeysay laakiin wixii ka dambeeyay 2009 ee Soomaalida wadanka ku soo bateen in degan si rasmi ah cadada degan waa inta u dhaxaysa 40 ilaa 50 Soomaali ah family iyo isugu jira dhalinyaro. wala aqabada way jiraan warbajoogta kale aan la qabnaa mid guud oo taas oo shaqada kale way jira dad aqabada kala soo kulmay ansuriyeyn oo kale iyo lagu ansuriyeyna xijaabada iyo aan xiranahay way jirta aqabada oo dadka kala simanahay tan guud hadda haysatana waa maadaama 10 sano wadanka degan caruurta ku dhasheen ay qaangaar ku dhow yihiin ma laha meel lagu baro diinta oo kale masaajid ma lahan waxa la wadaagnaa Turkidana markii ciidaha la gaaro kale ayaga isku badan masaajidku buuxsama kadibna waxay yiraahdaan
raali naga ahaada ilaa ayaga kireystay ana marka hore dul saar aan la ahayn marka taas jirta waayahay sidee ayaad ugu guulaystaan ama uga shaqaysaan inaad dadka isku keentaan maadaama dadka tirada halkan jooga ay aad u yar yihiin sidee idinkugu suurta gashaa isku keentaanka bulshada halkan wallaahi waxaa jirto barnaamij oo gaar oo aniga aan sameeyo gabdhaha ku saabsan iyo caruurta meeshaan isugu imaana meesha yani hoolkan oo yani integration iyo isku tag yani hooyooyinka caafimaadka iyo waxbarashada looga sheekeeyo ee qoladan karitaaska bixiso sidaas isugu imaana marka kalena waxaa jirto yani u baahan inaan yani ciid qabsano kale kol dad wada yaqaanana telefoonka la haysto wadankiina wuu yar yahay sidaas isku yani isaga warqabna haddii isku baahan isku wacnaa waxaa la ii sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay aysan jirin dad Soomaali halkan yimaaday sidee ay ku dhacday waxay ku dhacday inta badan way yimaadaan laakiin waa la celiyaa yani faray leeyihiin waa la celiyaa horaa laga celiyaa lama qaabil inta badan kalama hadlin oo wali uma tegin ma dhihin yani codsigaasaa wadanaa dad islaamaan nahay waxaa u baahanna meela ku cibaadaysano meela caruurteena wax ku baran ma dhihin lacalla haddii aad dhahnana waxaa u malaynaa inaa yani aan helayna yani igula badan tahay marka isku daygi una naga maqan horta qofna waa wada fadhinaaba laakiin waxaa si guud ahaan hawada ugu marinaya dad waxaana maasha Allah 10 sano meel wada degan isku wanaagsan iswalaashado marka laga soo tago yani qalalaasa kala Soomaalida dhaxmaro marka waxaan jeclaan lahaa insha Allah in yani wanaagii iyo walaaltinimadii iyo isjecelkii oo meeshiis ka sii socdo aan noqono dad mar walba isku tiirsan oo lagu daydo aan noqono wadanka Liechtenstein aan markii ugu horeysay waxaan ku arki jiray khariidada markii ugu horeysay maqlaa waxaad markaan booqasho ku imid wadanka Switzerland oo jeeriin waxa ugu la yaab badnaa inay ku nool yihiin 8 qoys oo Soomaaliya inuu wadanka dhanka kooban yahay 40 kun oo qof inay leeyihiin ku dhawaad askar aan gaarin 100 qof marka runtii waa wadan aan oran karo yani waxyaabo badan oo cajiib ah iyo koobsaday Soomaalida halkan waa ku yar tahay bal Holland waa ka timid Soomaalida aad u joogto bal labadana wadan Holland iyo Liechtenstein nolosha wallahi nolosha waxyaabo badan bay ku kala duwan yihiin kastoo wadan kasta ama ku badno ama ku yaroowe aynu ku nahay marti wadankan Liechtenstein waxa degan Soomaali wada garanaysa oo wada taqaana qof ku sheegay laakiin wadanka Netherlands Soomaalidu waxay noqotay dad sidii yani wadanka in badan soo galay muddo dheer joogay yani dad badan oo is aqoon ba jooga waxyaabo badan oo kala duwanahay sida iyagu waxa ka cabanayaan masaajid la'aan anagu waxaan u dambeeyay masaajid fara badan baa leenahay waxaan leenahay iskuulo noo gaar waxyaabo badan oo يعني ولا قدر يعني يقولين قرب جوج waxaan u dirayaa message ah in Liechtenstein ay tahay wadan dalxiiska ku haboon wadan qurux badan Soomaaliya oo kooban oo is wada jecel joogto dad fiican oo aad ku soo dhaweeyaan ay joogan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقة وحال يراهدا إلهان محمد حاج آدن وحان كيمادي ودنك إسويسكا oo daris la ah wadankan ama boqortooyada Liechtenstein waxaan isku jirnaa qiyaastii ilaa nusaac Soomaalida halkan ku dhaqan runtii xiriir waxa naga wada dhaxeeyo xiriir aad u dheer muddo 10 sano ah waxay aad ugu mahadsan tahay gabadha igu casuntay qadro shire oo ka tirsan dadka ugu firfircoon dhanka kalena Soomaalida dalka Liechtenstein ayaa xiriir iyo iskaashi dhow waxa ay la leeyihiin Soomaalida ku nool gobolka Graubünden ee dalka Switzerland kaasi oo dhaca xadka wadamada Liechtenstein iyo Switzerland qaar ka tirsan dadka Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku nool oo qudhoodu aan kula kulannay gudaha dalka Liechtenstein ayaa waxa ay ka warramay xiriirka ay la leeyihiin Soomaalida ku nool wadankan yar ee Liechtenstein arrimaheena waxa dhici karta inay noo fududaato inkastoo magaaladan Liechtenstein ay tahay magaalo sida xeerarka ama dhaqanka ama dawliyan ay Swiiska ka mid tahay waxyaabo badan ayaan wada qabsan karnaa ayaan leeyahay waa tahay waxyaabaha ay ka mid tahay waxyaabaha ay wadaagaan maxaa ka mid ah
waxyaabaha ay wadaagaan sida sharciyadoo kale siday u dhaqmaan sida Swiss-kay badanaa ayagana u dhaqmaan lacagahoo kale isaga midaan nahay sida politico kaleeto sida maxaa la dhahaayay way isaga mid yihiin waxyaabo badan ay isaga mid yihiin jaaliyadda gobolka aad ka timid Graubünden waxaa ka dhisan jaaliyad Soomaaliyeed sax bal jaaliyadaas iyo jaaliyadda halkan ku nool qaabka isku kaashan karaan ay ugu wanaagsan sidaa isleedahay والله wax badan aan ka wada shaqeynaa haday tahay xagga familada oo kaleeto sidaan ku sheegay masaajidada la isugu imaan jiro kaleeto waxaan ka wada shaqeynaa xagga familada oo kaleeto waxyaabaha maaragtay luuqada oo kale dhaqanka oo kale aan ka wada shaqeynaa si dadkeena maaragtay ay ugu baraarugaan ayna wax ula qabsadaan qoomiyadaha kale ee meesha degan waa dhawahay Cabdiqani aad iyo aad u mahadsan tahay maanta waxaan joognaa wadanka Liechtenstein magaaladiisa Vaduz oo aan meelo badan ka soo aragnay aan soo marnay xafiiska TV-ga SNTV iyo howlwadeennadiisa oo adiga aad ka mid tahay ka wariye ahaan wuxuu diyaar u yahay Soomaalida ku nool wadamada Talyaaniga iyo Austria iyo Luxembourg iyo sidoo kale Swiss-ka iyo Liechtenstein kulli in maaragtay aan ka bixino sawir guud oo aan soo aragno baahiyahooda oo aan soo aragno wixii siyaada ku ah iyo wixii ka dhiman intaba si markaasi ay oo la qaybsato bulshada inteeda kale iyo jaalideeda inteeda kale haddaan u soo noqdo dhanka Liechtenstein runtii waa meel aad u cajiib u ah qasrigii boqortooyadan tagnay oo ah boqortooyo ilaa 300 sano isbedbedelaysay oo dhowr boqortooyo ay soo kala duwan u soo maray magaalada iyo wadanka iyo dadka hadaa fiirisid wadanka ma aha wadan saa u sii weyn dadka degan ba wadanka dhan ilaa ay 300,000 oo envonar ah oo qof ayaa maaragtay degan oo deegaan ahaan u degan marka Swiss-kana runtii hadii la fiiriyo sharciyada iyo nidaamka wax badan bay wadaagaan xagga lacagta oo kale xagga maaragtay sharciyada oo kale waxyaabo badan bay ka sameeyeen yihiin waa magaalo yar oo wadan ah oo runtii dadka degan ay yar yihiin marka indhaynteeni kadib waxaan maanta soo aragnay Soomaalida meeshan degan oo halka maanta nagu soo dhaweeyay nagu casumay aad iyo aad u mahadsan yihiin gudoomiyahooda iyo howlwadeennadooda intaba sidoo kale waxaan aragnay gudoomiyihii iyo dhalinyarada isboortiga wadanka Liechtenstein waxaan yeelanay xiriir isku xira maadaama aniga laftirkayga aan kamid ahay ururka isboortiga ee Berna anana ahay gudoomiyihii isboortiga waxaan isku dayeynaa meel kasta Soomaalida ay joogto inaan isku xir u sameeyno si ay Soomaalida isaga warqabi lahaayeen sidii jaaliyadaha isaga warqabi lahaayeen sidii maaragtay isugu xiri lahaa dadka qaxootiga ah iyo dadka deegaanka ahba ee wadankan aan isugu xiri lahayn runtii wadanka Liechtenstein jaaliyad aad u badan ma degana sida wadanka Switzerland oo goboladiisu ay badan yihiin waa wadan hal magaalo ka kooban hal baarlamaan leh iyo hal meel oo boqorku degan yahay waa runtii meel aad u yar oo maaragtay anaga laftirkayagu aanan maaragtay arkin meel saas u yar haddana wadan ah waxaan jeclahay wadamada ugu yar inuu ka mid yahay adduunka marka la isku soo dardaro tahay daawadayaal guud ahaan waxaa intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka qurbajoog ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo guud ahaantiisa aynu daawadayaal ku soo qaadanay nolosha Soomaalida ku nool wadankan Liechtenstein iyo guud ahaan taariikhda wadankan yar ee qaaradan Yurub ku yaala barnaamijka daawadayaal waxaa isku soo dubay halkan ka soo jeedinayay anigoo Cabdiqani Cali Dalmar intaan mid la mid ah dib ugu kulmi doono dhamaanteedu isku duwan waxa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.